بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا channelka YouTube-ka أصلح بسافي waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad iyo cajiib badan. Inta aanan guudi galin fadlan subscribe saar channelka si ay kuugu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo kambaneelka taabo si aad ugu noqoto qofka ugu horeeya oo daawada share si aad ula wadaagto asxaabtaada. Walaalayaal, qisadan maanta waxay xambaarsan tahay qiso aad iyo cajiib badan. Qisadan waa qiso la yaab leh. Aabe oo kufsaday gabadhiisa. Subxaana caza wajalla. Aabe oo kufsaday gabadhiisa. Bal aan aragno sababta uu kufsaday iyo qaabka uu kufsaday. Labadan isla fadhiyaan waa walaalo. Midka koofidka ugu jirani waa deriskooda. Waxay u haastaan walaalkooda oo kale caman. Aabihii ayuu imaaday wuxuu dhahay assalaamu calaykum. Wuxuu salaamay kii deriska. haddana wiilkiis ayuu salaamay. haddana gabadhiisa ayuu salaamay. kabacdi waa fadhiistay aabe. ilmaha waxay dhaheen aabe see waayo adiga oo khamro aad cabsan tahay maa guriga mar walba noo imaanaysaa. aabe khamradan maad iska daasid aabe. kabacdi aabihii wuxuu dhahay wiilashayda gabadhayda wiilkayga maxaa idinku jira adinka haddii khamr aniga aan soo caawo faraha maad iga qaadiin. kii deriska ayuu hadlay wuxuu dhahay abeer carruurtaada waxay kuu sheegayaan waa run. haddaa khamra soo cabaysid bannaanka ku okaaw adigoo cabsan guriga ha imaanin khamriga iska daa. kabacdi aabbaha wuxuu dhahay deriska wuxuu dhahay adiga maxaa kaa galay kaali annaga iyo carruurteenna maxaad nagu soo dhex galaysaa yaa tahay horta adiga ayaa loo dhahay. deris xun ayaa tahay naga bax ayaa loo dhahay. kabacdi wiilka wuu xanaaqa wuxuu dhahay aabe qofkan deriskaani maahine walaalkeena oo kale caman waaye ee xishmee aabe yacni si xun ha loola dhaqmin. waxaa la dhahay adiga aamus ayuu la dhahay wariyaa meeshaada fadhi. kabacdi aabbaha wuxuu dhahay deriskii waxaa loo dhahay gurigayga ka bax intaan aan ku jeeda ka bax. kabacdi waa soo istaagay kii deriska. wiilka waa caliyay may fadhiiso. kabacdi aabbaha wuxuu dhahay war aamus wariyaa wiilkayga fadhiiso bax ayaa loo dhahay. kii deriska waa la burunaya waad u jeedaan naga bax. kan deriska wax ma dhihin waa baxay. kabacdi wuxuu dhahay aniga waan baxaa laakiin ogaaw adeer aniga guri ayaan leeyahay deris ayaa nahay ayaas dhahay. laakiin deris manihiye walaalo oo kale caman ayaa nahay ayaas dhahay. kabacdi aabbe adiga maxaad samays ayaa dhahay wiilkii. kabacdi aabbihii wiilka kuleetiga ku qabtay waxaas dhahay aamus maxaa kaa jira adiga deris oo xun maad usoo gubanaysaa ayaa loo dhahay. wiilkii waa xanaaqay waa la buriyey. wiilkii naftiisa xataa waa la buriyey bax ayaa loo dhahay. gabadhiina xataa waa laga daray iyadana fiiritinta ayaa laga qabtay. waxaa loo dhahay bax adigani qolkaaga gal. 3 sac ka bacdi waxaa soo naqday aabbihii. qisad hadda ayuu bilaabanaa sababta u kufsaday gabadhiisa. aabbihii wuxuu imaaday asagoo oo khamro aad iyo aad isku soo buuxiyey. aabbihii wuxuu soo galay guriga asagoo aad iyo aad u cabsan. kabacdi gabadhii waxay dhahday aabe maxaad samaynaysaa oo qolkayga maxaad u soo gelaysaa aabe maxaa kuu daran aabe maxaad rabtaa aabe qolkayga ka bax aabe maxaa ku soo geliyey. aabe wuxuu ogaaday guriga gabadhiisa kaligeeda ay joogto. wiilkiisa waa baxay kii deriskiina waa baxay. gabadha oo naxsan aabe maxaad samaynaysaa oo qolka maxaad igu soo gashay. aabbihii wuxuu ku jiraa aabbaha aamus wariyaa ha khiilinin. kabacdi gabadhii way naxday yaa aabe maxaad dhahoosaa adiga ha khiilinin aamus aabe maxaad samaynaysaa aabe waa ku sidaa aabe. kabacdi aabbihii kuma daalin asagoo dhahaayo kabacdi ugu dambayntii gabadhii garbaha ayuu ku riixay. sariirta ayaa jiifiyey waad u jeedaan. aamus wariyaa gabadheeda ayaa loo dhahay aamus jiifo inta sariirta jiif ayaa loo dhahay. kabacdi gabadhii way naxday alle ba'ayo oo aabe maxaa samayn doonaa aabe intay u socdaa aabe albaabka ayuu xirayaa aabe maxaa samaynoya. ugu dambayntii aabe wuxuu xiray albaabkii uu xiray 30 daqiiqo ayaa waxa ku jiray qolka oo gabadhiisa. kabacdi labadii wiil waa kanay waa soo baxeen. wiilkii wuxuu raali gelinayaa
saaxiibkiisa wuxuu dhahay aabbahayga wuxuu ku yeelay yacni cafi labadooda waa isshumiyeen kabacdi bannaanka intii ay joogaan waxay maqleen gabadha kheeligeeda way soo ordeen waxay imaadeen guriga qolka waxay arkeen qolkii gabadha oo as ka soo baxooyo aabe qolka maxaad ka samaynaysaa oo maxaad ka samaysay oo walaasheeda kabacdi aabbaha wuxuu arkay dana deriska kaale adiga oo weli mana daba socotaa iga bax makuu dhihinoo gurigayga mar dambe ha soo geli makuu dhihinoo ayaa dhahay aabbaha kabacdi waa xanaaqay deriska aabbihii yacni wuu dharbaaxay wuu kala gamay markee meeshaan wax ayaa la dareemay ayagoo bannaanka joogaan ayaa gabadhii keeligeeda ay maqleen kabacdi wiilkii wuxuu soo galay gabadha qolkeeda kabacdi waxaasuu dhahay abbaayo maxaa ku daaray oo aabbe maxaa ku yeelay isoo fiira abbaayo maad ila hadashid abbaayo maxaad la aamusan tahay iidini waa xishiinaysaa xishood ayaa madaxeeda hoos u geysay kor usoo kicin weeday kabacdi wiilkii wuxuu dhahay saaxiib oo walaasheeda maxaa ku dhacay oo walaasheeda ma hadlooso see waaye kabacdi deriska wuxuu dhahay saaxiib adiga wax ma fahmoosid miyaa saaxiib oo war bal fiiri aabbahaaga markii oo albaabka ka soo baxaayay waa neebsaday ayuu dhahay aniga waa soo neebsaday walaashaada waa xoogay waa kufsaday aabbahaaga yaa ayuu dhahay wiilkii oo aabbahayga muu kufsaday walaashayda yaa waa xanaaqay wiilkii kabacdi albaabka ayaa ku baxay kabacdi kii deriska wuxuu qabtay aabbihii wuxuu dhahay kaale adiga wuxush baa tahay ayaa loo dhahay waxa adiga oo samaynaysid ayaa loo dhahay xoolaha xataa ma samaynayaan oo kaale maxaad samaysay ayaa loo dhahay yaa kabacdi wiilkii waa xanaaqay mindi ayuu soo qaatay gacantiisa fiiriya ugu dambayntii wiilkii wuxuu dilay aabbihiisa caloosha ayaa mindi ku geliyey maxaas u dilay ciil daraaddiis walaashiisa oo kufsaday kabacdi deriska wuxuu dhahay saaxiib kaale oo adiga maxaad samaysay aabbe ayaa dishibe oo aabbe maxaad u dishay ayaasu dhahay aabbe aad dishay aabbe ayaa nafta aad dhaafsisay see waay ayaa loo dhahay kabacdi waa wareeray deriska wuxuu arkay aabbihii la dilay wiilkii gacanku dhiig naqnaqday ee gabadhii la kufsaday kabacdi ugu dambayntii guriga waxay imaadeen askari wiilkii waa la waday wiilkii asagoo oo kateena lagu xiray wuxuu arkay aabbihii oo dhulka jiifo walaalayaal qisadan waa qiso oo dhacay qisadan yacni soomaali xataa waa ka dhacay filinkan aad u jeedaan asagoo af soomaali ah aniga ayaan tarjumay youtube-kayga ayaan geliyey hal sano ka hor kabacdi dad badan ayaa comment ii soo qoreen waxay dhaheen waxaan wax dhici karo ma ahan marka alxamdulilah dad badan oo yacni friendigayga ah oo asxaabtayda ah oo youtube-kayga ku xiran ayaga ayaa soo jawaabeen waxay dhaheen waxaan waa qiso oo dhacay gabar ayaa iila soo hadashay oo comment ii soo qortay waxaa dhahday qisadan aniga horta aniga waxaan dhahay qisadan 30 sano ka hor ayaa xamar Soomaali Muqdisho ku dhacday ayaan dhahay waan huwa aan dhahay kabacdi gabar waxay dhahday walaalkayga aslax yacni 30 sano iska daa ayay dhahday hal sano ka hor ayaa qisadan waxay ku dhacday ayay dhahday Soomaaliya hal sano ka hor 30 sano waa badan yahay ayay dhahday 30 sano iska dhaaf marka walaalayaal filimkan waxaan ku faa'iideynaa yacni aabbe sababta u kufsaday maxay ahayd gabadhiisa sababta u kufsaday waxay ahayd asaga miirkiisa ma joogin horta gabar aabbe oo gabadhiisa kufsanaayo ma jiraan ilaa haddii oo yacni wax oo qalbigiisa ama miirkiisa oo beddelaayo oo isticmaalo sida daroogada sida khamrada qofkii darooga oo isticmaalo waa laga yaabaa inaa oo gabadhiisa askufsado qofkii khamra cabo waa kana waaba u jiidaa ninkan khamra ayuu cabay gabadhiisa ayuu kufsaday
mase kufsada waxaa bakeenaa mukhadaraadka walaalayaal hal iska daayo waxa oo mirka beeliya oo mirka dooriya maxay dhacay wixii mirka dooriya waa xaraam wixii adig aad sameynaysidni ma ogtihid marka wax daraagista dhan dhibaatadan ayuu leeyahay marka subxaana ilaaha naga koriya subxaanallah gabadhaada oo kufsatay yacni shay oo waxa waaye yacni dembigiisa aan la soo koobi karin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaas dhahay zinada waa xaraam zinadani waxaa ka sii daran ayaas dhahay qofkii oo macsi la samaysto qofka adig kuu dhow ilma adeer ilma abti ilma eedo ilma habar yar haddaad macsi aad la gashid dembigaaga yacni 100 jibaar ayuu noqonaa macsiga sidiisba dembi waaye laakiin ilma adeer ilma abti ilma habar yar ilma eedo haddaad oo macsi aad la gashid oo macsi aad ku samaysid 100 jibaar oo dembi ayaad helaysaa macadalla maxaad u malaynaysaa gabadhaada haddaad oo yacni aad faro xumaysid walaalayaal yacni yaan lisdhihin aslax abasaafi yacni qisadan maxaa waaye oo soo tarjumay oo ku soo sheekeeyey aniga waxaan ku soo sheekeynayaa waxa waaye yacni waxada oo miirka beelinayo hal iska daayo khamrada hal iska daayo maxaa yeelay khamra haddaad cabtid wixii samaynaysid ma ogtihid darooga haddaad qaadatidna wixii samaynaysid ma ogtihid insha allah yacni waxaan walaalahayga aan soo gaarsiinayaa soomaalida iyo dadka muslimiinta dhammaantooda wax oo mukhadaraad oo la dhaho oo miirka beelinayo in la iska daayo yacni waxa waaye haddii miirka aad beeshid waxaad samaynaysid ma ogtihid hadda wiilkan waa kanaay gacanku dhiigle ayuu naqday aabbihiisa ayuu dilay walaashiisana waa la kufsaday adoogiini maxaa u dambeeyey inuu oo adduunka ku musaafiriyo wiilkiisa oo asdhinto oo mindi caloosha la geliyo waxaas dhan maxaa asbaab u ah mukhadaraadka walaalahayga filimkan waxaa idin soo turjumay ama waxaa idin soo habeeyey walaalkiina aslax abasaafi filimkani waxaan ku soo habeynay studio saafi oo ku yaala dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Baadawa sidaas iyo nabadgelyo walaalahayga waxaan idinku cudur daaranaa xoogahoo waa hargabsanahay iga raali ahaada